madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa xariga ka jaray xarunta ganacsiga ee Cafe Business Center oo nooceedu ku cusub yahay geyga Soomaalidu degto kana kooban qaybaha cuntada goobaha carruurtu ku ciyaarto oo lagu rakibay qalabka carruurtu ku ciyaarto casriga kaalinta shidaalka qaybta marista gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo masjidka cibaadada madaxweyne Axmed Silaanyo ayaa hadal kooban ka jeediyay goobtaasi oo ahayd afaafka hotelka cusub ee Cafe Business Center وبين أبو خطر له أبو قرح بدر waxaana ka qayb galay xafladda xarika jarka hotelka Cafe inta badan maayirada magaalooyinka Somaliland culimaadudiin madax dhaqameed madaxda shirkadda hirgelisay dhismaha xarunta casriga ee Daryeel Construction Company mas'uuliyiinta xarunta Cafe Business Center iyo marti sharaf kale waxaa ka hadlay munaasabadda madaxa hotel Cafe Cabdikariin Xaaji Muuse Muruqliqe kana mid ah mulkiilayaasha xaruntaasi oo ka hadlay maalka maskaxda iyo waqtiga dheer ee la geliyay hirgelinta xarunta casriga ee Cafe sidoo kale waxaa ka hadlay munaasabadda xubno ay ka mid ahaayeen Suldaan Cusmaan Suldaan Cali Madar duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Qabo oo dhammaantood bogaadiyay xarunta ganacsiga ee Cafe dhamaadkii xafladaasi waxaa shahaado sharaf lagu maamuusay shakhsiyaad iyo shirkadaha ay ka mid tahay shirkadda dhismaha ee Daryeel kuwaasoo dhiirigeliyay xarunta cusub ee ganacsiga ee Cafe madaxweynihii waxaan aad iyo ugu faraxsanahay runtii inuu inagala soo qayb galay munaasabadan xaruntani waxa ugu muhiimsan oo ay ka kooban tahay children playground halkii ay carruurtu ku ciyaaraysay wuxuu ka kooban yahay supermarketkii restaurant iyo cafeteriadii fuel stationkii conference hallkan oo aad aragtaan ilma Xaaji Muuse ahaan markii aanu hindisaynay businesskan waxaanu weydiinay magaalada war maxaa idinku daran waxaanu isleenahay magaaladii aad ku dhalateen wax ku celiya waxaanu qaadnay interview madaxdeedii baanu wareysanay dadweynaha baanu wareysanay waxay nagu yiraahdeen war waxa noogu daran markaanu carruurta soo qaadno ciidaha iyo jimcaha meelaanu carruurta iskaga reebno meelaanu iskaga yareebno carruurta ku ciyaarto taa noo sameeyay yiraahdeen taa waanu ka ajiibnay mar labaadka waxay yiraahdeen war waxaad noo sameeysan hoolal aanu shirarka ku qabsano hoolalkiina waanu ka ajiibno waad aragtaan kan aynu maanta fadhino waxyaabahaasaan runtii nagu kalifay inaanu aad ugu dhiirano inaanu businesskan noocan oo kale magaalada ku soo kordhino meel la isugu yimi waa in shaah laga helaa waa in cunno laga helaa waa in shidaal laga helaa waa waxyaabihii qurxinayay weeye xunba noo haray idanka Ilaahay inaanu garoonkan dambe ee bannaan aanu ka sameeyno meeshii la seexanayay waad aragtaan dhismo noocyadiisa iyo sidoo uu qurux badan yahay Soomaalida marka laga yimaado Yemen baa ka qayb gashay dhiskiisa Masaari baa ka qayb gashay waxa ka qayb gashay Pakistan waxyaabahaas oo dhan waxaan uga jeednay inaanu misnidahna magaaladii ku soo kordhiya wax wixii hore ka duwan aad u wanaagsan tahay in ciyaalkii meeshii ay ku ciyaari lahaayeen loo helo mulkiilahana waxa leeyahay aad baa u mahadsantahay ambassador iyo muxuu ahaa Royal iyo Mansoor iyo dhalin noocaas inuu sameysano aad iyo aad u faraxsan waxaan soo dhaweynaa cid kasta oo hantida inta leeg burca gelinaysa waxay ku soo kordhiseen magaalada Burco iyo sharaf weyn waxaan leeyahay waa idin ducaynaa ya Allah idin barakeeyo habeen lagu soo mijabaxsado cashooyinka laga dalbado ta guriguna lagu ekaan aweyskiisu u bato intaas reeb waxaan kula dardaarmaya waxa runtii ugu horeysay Cafe Business Center ee laga furo magaalada Burco isla mar ahaantaana soo kordhisa adeegyo kala duwan oo aanay hore u fulin jirin xarumaha ganacsiga iyo hoteelada magaalada Burco Maxamed Boos TV-ga caalamiga Universal Cafe Business Center Burco